السلام عليكم. waxaa jirta oraah loo nisbeeyay Albert Einstein ma aqaan hubka la isu adeegsan doono dagaalka saddexaad ee adduunka laakiin waxaan hubaa in kan afaraad warma iyo midiye la isu adeegsan doono waa qiyaastiisa ka caalim fiisigis ah aadna uga argagaxsana horumarka hubka waxa macquul ah inuu oraahdaasi toos u dhihin in uu yirina sidoo kale waa macquul laakiin waxa la hubaa in uu yiri mustaqbalka dagaalada in ay xadaarada masixi doonaan asagoo qiyaasayo horumarka hubka sidoo kale iyo in haddii uu dagaal nuclear dhaco magaalooyin bal wadamo badan ay masixmi doonaan xaaladda Ukraine waxaad moodaa inay gacanta ka sii baxayso waxaana baryahan la hadalhayaa ugu yaraan dhinaca saxaafadda dhicitaan dagaal saddexaad ee adduun taasoo ka dhigan in hub nuclear si toos ah la isu adeegsan doono markale waxaan dhihi karnaa ayadoo dhacdooyinkan ay jiraan in uu dagaal saddexaad ee adduun dhaco ilaa heer waa mustabcad laakiin dhacdooyinka Ukraine waxaad moodaa arrinka inuu faraha ka sii baxayo haddii dagaal nuclear uu dhaco saacadaha ugu horeeyo dhimashadu waxay gaari doontaa wax ka badan 300 milyan oo qof xaaladda Ukraine galbeedku طبعا wuxuu ruushku saaray kadib duulaankan cusub cunaqabatayn aad u adag cunaqabatayn aanan horey loo arag sida in xitaa maraakiib badeecad u waday ruushka lagu hor istaaga gacanka Manch ee u dhaxeeya Faransiiska iyo Ingiriiska طبعا waxaad ogaataa ruushka inuuna ahayn dawlad yar oo la daandaansan karo ama ka aamusayso hor istaaga masaalixdeeda muhiimka haddaba ka waran haddii uu arrinkan sii weynaado dagaal caalami ah isu bedelo maanta waxaan su'aal kaba soo qaatay isweydiinaynaa hadduu dagaal nuclear dhaco haddii uu qarxo dagaal nuclear la isu adeegsanayo xaalku siduu noqon doonaa laba dawladood ama dawlado badan haddii ay ka qayb galaan dagaal nuclear ah xaalka adduunku siduu noqon doonaa marka koobaad aan kula wadaaga macluumadan in 13,400 bombo nuclear ay adduunkan yaalaan waana inta la og yahay waxaana la qiyaasayaa in wax ka badan ay qarsoon yihiin oo la ogeyn Mareykanka iyo Ruushka kiiba wuxuu haystaa 7,000 bombo nuclear liiskan hortanada ka muuqda waa dawladaha hubka nuclearka haysta iyo xoogaa tafaasiil ku saabsan taariikhdii ay samaysteen iyo tirada bombooyinka nuclearka ay haystaan caalamkan aan ku noolnahay magaalooyinka ku yaalo ee ay ku nool yihiin wax ka badan 150,000 oo qof waxa lagu qiyaasaa 4,416 magaalo waa magaalooyinka ay ku nool yihiin wax ka badan 150,000 oo qof magaalooyinkaas haddaba waxaad u qaybisaa 13,400 oo bombo nuclear waxa halkii magaalo ugu yaraan ku soo aadayo 3 bombo nuclear taasoo ka dhigan in haddii waxa caalamka magaalo weyn ku yaalo haddii nuclear lagu dhufto ugu yaraan magaaladiiba hal bombo nuclear in ay soo harayaan kumanaan bombo nuclear sidoo kale ila sawira muuqaalkan lagu tilmaami karo inuu yahay yawmal qiyaama 1980 waxay ahayd waqtigii ugu darnaa ee uu socday dagaalkii qabooba ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Midowga Sofiyeedka waxaana cabsi weyn laga qabay in Mareykanka iyo Sofiyeedka ay nuclear iswadaarsadaan waliba wax badan ayay qarka u fuuleen waxaa jiray hadaba daraasado badan yani sidoo xaalku noqon doona talow haddii uu dhaco dagaal nuclear waxaa jira eray ay adeegsadeen oo ay ku magacaabeen nuclear winter jiilaalka nuclearka oo ka dhigan jahiima argagax leh marka tafaasiishiisa aad sii akhrisa Well, nuclear winter is the predicted from physics calculations cooling and darkening of the earth following a nuclear war. Basically what happens is mainly from the burning of cities, fine particles get put up into the atmosphere, block sunlight. in qiiqa bambooyinka nuclearka kumanaanka la adeegsanayo uu hawada isku shareeri doono qorraxdana dhulka ka qarin doona qiiqas nuclearka waxaana ka dhalanaya ay leeyihiin in heer kulka dhulka uu aad u dago in dhulku uu noqdo baraf qabow waliba qabow aan lagu noolaan karin waa qiiq aanan maalin iyo habeen ku tagaynin dhowr bilood qorraxda dhulka ka qarinayo waxaana eber noqonayo ay leeyihiin dalaga oo dhan waxaana dilaaci doona macluul wadareed malaayiin qof ay ku hoobtaan iyo xoolahoodii طبعا noolayaasha kala duwan waana inta ka badbaaday qaraxa tooska ee bambooyinka nuclearka jiilaalka nuclearka waa dhacdo haddii ay dhacdo u eg yawmal qiyaama quraanka kariimka waxaa jirta suurad lagu magacaabo dukhaan qiiq calaamadaha aakhir zamaankana waxaa ka mid ah qiiq weyn oo imaan doona laakiin tafaasiishiisa iyo waxa uu yahay ilaahay kaliya ayaa og waana dhacdo kowni waxaa jirta aayad ka hadlaysa qiiq suga qiiq imaan doona haddaba aayadan fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhaanin mubiin dad badan oo isku yiraahday inay yara ijtihaad sameeyaan ayaa leh waxa macquul xaqiiqada ilaahay kaliya ayaa og in qiiqaas uu yahay jiilaalka nuclearka ee qorraxda dhulka ka qarin doona
qabowgaas daran awgiina dadku ay dhihi doonaan hada cadaabun aliim waa cadaab aanan la arag fartaqib yani waa wax la sugaayo ilaa hadda yani ma dhicin fartaqib yowma ta'ti asamaa'u bidukhaanin mubiin yakhsha annaasa hada cadaabun aliim laakiin mar kale waxaan leenahay xaqiiqada ilaah keliya ayaa og waxaa la qiyaasayaa in 72 saac ee ugu horrayso ay dhiman doonaan wax ka badan 300 milyan oo qof 335 milyan oo qof ayay ku qiyaasaan macluumadan kala qabsa sidoo kale maadaama ilaa haddaad ila socoto dagaalkii qabooba hawada waxaa ku jiray diyaarad 24 saac gaaf wareegaya yurub maraykankanu leeyahay oo ay saarnaayeen hub nukleer ah diyaarna u ahaa daqiiqad walba in awaamir la siiyo hubkaas ay midowga Sofiyeedka ku garaacaan diyaaradaha hawada shidaalka lagu siiyo isbabadalayo haddaba 1966 Spain waxay ka badbaaday musiibo weyn kadib markii diyaaradahaas hubka waday nukleerka ah mid shidaalka siinaysay iyo midii hubka nukleerka saarnaa isku dhaceen waxaana ka dhashay in diyaaradii ay burburto 4 bambo nukleer ayaa saarnaa bambooyinkan diyaaradan saarnaa markaas uma diyaarsaneen in ay qarxaan dhulka ayay ku soo dhaceen laakiin waxaa ka dhashay shuucac aad u badan dhacdadan waxay muujinaysaa in Maraykanka uu diyaar u ahaa daqiiqad walba in uu midowga Sofiyeedka ku garaaco bambooyin nukleer ah Maraykanka waxa uu qorshaysnaa in 199 magaalo Sofiyeed ah oo ay ku nool yihiin ugu yaraan 50,000 oo qof in uu nukleer ku dhufto waxa uu yaalay Maraykanka liis 199 magaalo oo midda ugu yar ay 50,000 oo qof ku nool yihiin in uu hub nukleer ku garaaco weerarkaas wuxuu 56% dadka magaalooyinka iyo 37% dadka miyiga waa Sofiyeedka u bedeli lahaa wax dhintay iyo kuwa ugu dambayn gaajo iyo cudurro u dhiman lahaa maadaama mujtamaca oo dhan uu baaba'ay markii tusaale ahaan magaalooyinka ugu waaweynaa ee dalka nukleer lagu garaaco waxay ka dhigan tahay noloshu inay istaagayso sidoo kale Sofiyeedkan asagana waxa uu qorshaysnaa in magaalooyin intaas la eg oo Maraykanka ah uu nukleer ku garaaco waana kii gantaale nukleer geeyay Cuba oo xuduudka Maraykanka ku taala dhinaca badda waqtigaas dadka midowga Sofiyeedka wuxuu ahaa 217 milyan haddaba kaydka Maraykanka arrinkan ku saabsan ee la faafiyay waxa ku qoran in 108 milyan ay dhiman lahaayeen labadaas 100 waana saacadaha ugu horeeya malaayiin kalena ay silic iyo saxariir iyo cudurro u dhiman lahaayeen طبعا sanadada xigo dhinaca Shiinaha طبعا Maraykanka sidoo kale wuxuu qorsheynayay in 79 magaalo hub nukleer lagu garaaco taasoo ka dhigan in 72 saacadood gudahood midowga Sofiyeedka iyo Shiinaha ay dhiman lahaayeen 335 milyan oo qof Hindiya iyo Pakistan waxa dhex maray ugu yaraan 3 dagaal oo dhammaantood ahaa ka hor yani inta ay heleen hubka nukleerka haddaba ka waran haddii uu dagaal dhex maro waqti ay haystaan yani hubkaas nukleerka ah waliba waqti xisbi hinduus xag jir ah waliba ku baaqay si rasmi ah akoontiyadiisa rasmiga ah in muslimiinta la gubo طبعا kuwa Kashmir ayaa ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa mar uu qaramada midoobay hortaagnaa wuxuu sheegay ayadoo la fiirinayo طبعا xukunka xisbigaas hinduuska ee uu hogaamiyo Modi ay macquul tahay in labadan dawladood ay haysto hubka nukleerka uu dagaal nukleer dhex maro I want to repeat here this is one of the most critical times there will be a reaction to this Pakistan will be blamed two nuclear armed countries will come face to face like we came in February and before we head in that direction the United Nations has a responsibility. This is why waliba waxaa xusid mudan in bambooyinka Hindiya ee Pakistan ay haystaan oo kiiba lagu qiyaasay 150 bambo dhinaca wax burburinta uu ka yar yahay kuwa ay haystaan Maraykanka iyo Ruushka haddaba waxaa la qiyaasayaa haddii Hindiya iyo Pakistan uu dhex maro dagaal nukleer ah saacadaha ugu horeeyo 125 milyan oo qof ay dhiman doonaan waxaad sii ogaataa in uu jiro hubka طبعا biologicalka ah ee waliba lagu tilmaamo in uu ka khatarsan yahay hubka nukleerka ayadoo la fiirina inuu yahay gantaalo cudurrada lagu hoobto taacuun iyo cudurrada malaayiinta qof ay ku dhintaan oo loo bedelay gantaalo magaalooyin lagu garaacayo in hubka biologicalka ah uu ka khatarsan yahay hubka nukleerka laakiin waxaan ka hadlaynaa ama musiibooyinkan hadda aan sheegayno waa hubka nukleerka kaliya
waxaa la dhahaa dabcan maanta hubka bini aadamka oo haysto wuxuu awoodaa intaasoo mar dabcan kownkan iyo dhulkan nolosha ilaahay gacantiisa ayay ku jiraan laakiin hubkaas dhowr mar ayaa dhulkan lagu burburin karaa dhacdooyinka Ukraine faraha ayay kasii baxayaan waan arki doonaa insha Allah sida ay wax noqdaan maalmaha soo socda qodobkan intaanu ku egyahay waa aniga Cumar Inshaar wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh